بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أدبان سلام يا أمة الصوماليين يورير SSC برنامج وحن رباه كلمة إن عن كيدا هذا حالتها وحوي محاكرة مقالة عرقابه وحوي aynu la soconay in waxawey maxaa ku raad dagaalo iyo waxawey maxaa ku raaday dhimashada ay jirtay waan la hadal hayay oo waan iyo nabadgelyo lagu baaqayay wararka ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in waxawey walaalahaas waxawey ka soo jeeda gobolada waqooyi runtii inay wali wadaan caburintii iyo xirxiridii iyo cagajuglayntii iyo u dawladeyntii inay wali wadaan taasina wixii laga runtii keenay waxa weeye awalba colaada bay ahayd marka Soomaalidu waxay tiraa sagaar qoorqabad kuma biyo cabto waxaan leeyahay dadka reer SSC iyo dhamaan waxa weeye maxaa ku raadayay inta waxa weeye maxaa ku raadayay la fikirka ah guud ahaan meel ay joogaanba magaaladaas dadkaas magaalada Ceelgaabo jooga xuquuqdoodu way maqan tahay mana la rabo xuquuqda in la bixiyo waayo waa loo dawladeynaya waxa la doonayaa dawlad baadil ah oo waxa weeye maxaa ku raadayay xariga Ilaahay magaranaysa xarka goysa oo gabadfal waxa weeye Ilaahay diintiisa ku gabadfalaysa oo midnimada muslimiinta ku gabadfalaysa oo shaydaan u adeegaysa in waxa weeye maxaa ku raadayay Allah magaranaysa dadka ay adoonsato bay doonaysaa iyadoo ayaga adooma ah oo Ilaahay qeyrkii u adooma ah oo gaalo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dal ummadda islaamka ku soo duushay muxibbo iyo jacayl iyo walaayo u haya ole waxa weeye isticmaar baa dhulna siiyay i'tiraaf baan doonaynaa Ilaahay qeyrkii aanu ka doonaynaa dadka noocaasi waxa weeye maxaa ku raad runtii in ay waxa weeye dad muuminiina oo waxa weeye muslimiina oo waxa weeye lagu dhibaataynayo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo waxa weeye sharafka ummadda Soomaaliyeed iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waxa weeye iyo ilaalinta iyo difaaca waxa weeye maxaa ku raadayay wadajirka in lagu dhibaataynayo oo lagu ahaanaysanayo waxaan leeyahay arrintaasi arrin wax soconaya maaha sidaa darteed waxaan leeyahay dhammaan dadka waxa weeye ku abtirsada waxa weeye gobolka Sanaag dhinaciisa waxa weeye maxaa ku raada bari iyo koonfureedba waxa loo baahan yahay in aad u diyaar garowdaan sida sharafkiina iyo karaamadiina aad u difaacan lahaydeen gobonimadu waa geed ku baxa dhiiga geesiga baan leeyahay waxa weeye maxaa ku raadayay magaranaysa nafta loo hurin lama helo sharaf aan nafta loo hurin lama helo marka waxaan leeyahay xaq baad ku taagan tihiin waxa aynu la dagaalamayna waa mabaadi gumaysi weey waxa la isku hayaa waa mabda laba mabda baa la isku hayaa mabda midnimo doona oo islaamnimada difaacaya iyo wadajirkeeda difaacaya oo diinta difaacaya oo sharafka difaacaya iyo mabda dulli ah oo waxa weeye gunnimo doona oo gumaysi kalkaala oo diinta iyo dadka iyo maxaa ku raadayay dalkaba baabi'inaya saa darteed waxaan leeyahay waa waajib qof kasta oo waxa weeye maxaa ku raadayay muwaadin sax ah oo Soomaaliyeed inuu arrintaas doorkiisa ka qaato dadka ay gaar u saameynaysan waxaan leeyahay xaq baad ku taagan tihiin ee ku adkaada xaqa Ilaahayna ha idin waafajiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.